waxa maxkamadda la iigay hal eray oo eri waa maxkamadda la iigay barigaan waxaan ka dhaxay galaaska dhexdiisa aan ku sheegay iskuulka dhexdiisa filim 30 daqiiqo la idaaray filimka 30 daqiiqo waxaan ku yiri ma daawan karayo macallinkii fasaxbiisii wuxuu yiri waa iska bixi kartaa hada doonto gurigaaga xitaa tagi kartaa bibi gurigii ma tagina 30 daqiiqo filimkii markuu dhamaan soo galay xiisadii labaad dacwad biga gudbiye dacwad aroortii dambe warqadda ay soo dhacday iskuulka tagi halkaas ka balansantaa meeshii ugu horeysay afar gaalaba hareeraha iga soo kala fadhiistood moodaba inay qof dhiigyacaba ama qof dambi galay sidiisa in loo ilaalinayo sababtaad ku keentay waa maxay maxaa kuugu wacnaa iskuul baad ku jirtay way baan noola soo doonanaysaa arrimaha diinta ku xisaabsan maxaad noola hadlaysaa filimka la daarana filim 2 nin buu ahaa aniguna 2 nin inaan daawado diin iyo maada toona ima banayn anigoo weliba 20 jir wadankayga kaga mid oo gariya ka fuur lahaa diinteedii ku soo bartay anaa filimka la ii daaray ka waran ilmaha aan maanta bari dhalashan jirka ee filimka loo daaro maalmaha ka mid ah marka waxa jirtay inaan yarba iskuulkana lagu keenay waxa la yiri inankan 2 nin baa dhashay sidaad u aragtaan reaction ka bixiya maalinka dambe xiisadii waxa ku saabsanayd ba 2 nin baa inankan dhashay reaction ka bixiya waa beentii cadaan fikirka aan ka dhiibtay waxay ahayd waa qalad inankan 2 nin ma dhalin been ha u sheegina ayaan idhi iskuulka dhexdiisa baan ka idhi aad u tiraahdaa labadii maxkamadda baa la igu soo joojiyay sidaad filimka 30 daqiiqo uga baxdaa sidaad u tiraahdaa labada inanka 2 nin ma dhalin fikirkaaga mad ka dhiibatay oo tiraahid aad wax kale iska sheegtay yani mad amaantid oo tiraahid waa caadi way dhici kartaa adduunka hadda casriga isbedelay ilma yar baa waxa laga soo dhaadhiciyay in 2 nin dhaleen oo 5 jira oo iskuulkana lagu keenay kolkaas kuwii kalaaska fadhiyay waxa laga dhaadhicinayaa inay dhaleen 2 nin waxa ma dhali karto laakiin maxaa la sameeyay ilmaha 2 nin oo qaniisina soo iibsatay ilmo midna aab u noqday midna hooyo saas lagu dhaadhicinayaa taas ilmaha iyaga korsadaba saas darteed ilmahana wuxuu ku barbaarayaa inuu ninkan aab u yahay ninkan hooyo u yahay waana 2 nin wayna soo iibsadeen lacag bay soo siisteen aniga intii markaan sheegayna maxkamad baa 3 bilood igu socotay sababta igu socotayna waxa weeye waxa la arkay nin argagixisa nin diimaha ka soo horjeeda nin dadka dhaqan xumo ku beeraya waaya galaaska 10 qowmiyadood kala duwan baa ku jiray hindi baa ku jirta oo la caabuda anaa muslimna ku jirtay dad kristana ku jiray portugiis kale oo diimo kala haysta ku jiray dad geedaha caabuda ku jiray dadkaasi kamay hadal baa la yiri diintoodii iyo dhaqankooda wuxuu u baneeyay waxay ka hadleen xaaladda maanta meesha ka jirta iyo sida adduunku u socdo adiguna ta ka hadashid marka aniga oo 20 jir maanta aan arrimahaas la igu qabsanayo ilmahaygu bari ka maal soo noqon kara aan ilmaha Soomaaliyeed ka wada harayay iskuulka aan tago soo wada maraa iskuulka aanu soo maray in bay soo wada marayaan waliba iyagoo ka caqli yar oo ka yar sidan maxaa dhici kara aniga waxaan u taagnaa galaas oo carruurta asaas dhalinyarta iska wada joogto ay 2 nin 2 ilmood 2 wiil oo saaxiib ah la leeyahay ma iska hesheen la isku qalqaalinaya in 2 wiil yani bari ka maal inuu kan guursan karo kan guursan karo normal bay ka tahay galaaska dhexdiisa lagu sheekeynaya waxaas hadda si toos ah labada ilmoodba waxa la weydiinayaa keed guursanaya adiga keed guursanaya maada wax guursanaya misaada lagu guursanaya qofka weydiinayana waa macallinkii iskuulka u dhigay labada ilmoodna si isdaacad uga jawaabayaan mid buu leeyahay ana kan ay guursanayaan ana kan ay guursanayaan faanta waa la isku suuranay waa 2 wiil waana carruur yar oo maanta waa dadkii maskaxda laga qabsanay marka halka marayso bari ka maalin wala ilaahay nuguma keena waxa dhici karta aan ilmayaasheeda inay ka qayb galaan carruurayaashaas oo maanta ay halaabaan diin ahaan u halaabaan dhaqan ahaan u halaabaan xumaadaan ayaa dhici karta cidda la saaxiibayaan kan waraysid cidda maanta wax lagu waanay kan waraysid filimka la soo daawadsiiyay kan waraysid waa sax iyo waa qalad aad tirahana oo ilmuhu bari ka maalin galaaska ka sheegay inuu hooyadii tiri waa sax ama waa qalad waxaas lagu soo dhigay adiga bari maxkamad ku imanaya carruurta ka soo qaadan ba ku dambayso taa markaan ka imaado anigu haddaan maanta shaqo firiya ka shaqaysto oo hadda taksiga fuulo oo idhaahdo ana shaqo firiya iska shaqaysanayo cidna ilama hadlaysa habeen iyo dharaarba aniga maanta waxaan ka fikiraya aniga ma wax ka fikiraya mustaqbalkayga ilmahaygu ma taksi buu ka shaqaynay xurriyadda aan maanta qaatay ama sidaan aan maanta wax u gartay ilmahaygu muu qaadanaya waa maya diinta aan maanta aan nafteeda ku cabeedayo aan ku caabidinayo ilmahaygu muu ku caabidinayo waa maya inagoo 20 jir hawadii adduunyada nala tagtay halkan oo salaadeeni iyo soonkeeni iyo dabacar ku jirno oo gabdhihii iyo wiilashiiba halkan intay midna jagada xeeray midna lugta qaawiyay midna dhinacan qaawiyay la iska wada dhalinyareenayaa ka waran kuwa halkan ku dhasha xaaladooda soo noqon karta walaal wallahi waxaan ka fikirayaa ma ogaasaan ku soo dhameeyay waxaan ka fikirayaa maaha aniga noloshayda anu maanta waan awoodaa inaan soonkayga iyo salaadayda iyo sadaqadayda iyo wax walba aan isku toosiyo wadankan aan ku noolaado waxna aan ka qabsado waan awoodaa laakiin mustaqbal baan samaysanaya maadaama qof mustaqbal maanta u socda ahay oo carruur iyo reer iyo doonay inaan bara samaysto aan wax beero dad iyo diinba maanta dhulka ku soo biiriyo waxaan rabaa inaan meel fiican aan ku beero oo waxaan ku wadi karo laakiin halkan haddaan hadda ku sii noolaado okay ma single maanta ku jira noloshayda oo waan shaqaystaa waan xamaalaawn oo guriga maxaa ka dhisaa sandaqad maxaa ka dhisaa hawadan baan ku sii jiraa maya soo maaha aniga qof binaadana baan ahay oo nafle marka qofku u tashan karaa waan tashaday anigu baasaboorka marka haddii aan la tago Soomaaliya intaasaan ka sugnaad dad baa waxay leeyihiin baasaboorkaaga iska hayso wadanka la tago la deg oo yaani 10 sano 20 sano iska degano baasaboorkayga haddaan la tago waxaan ka duulayaa berri ka maalin inaa xaalada adduunyo soo qabtaan oo is yiraahdo
duruuftana hadda ku haysata baahidana kugu yar dhacday xagganaad guri uga baahan tahay gaari baad iibsan lahayd inaan hami iga soo galo Yurub ama qurbo inuu iga soo galo hami oo baasaboorkaygii aan dhinaca ku haysto hamiba inuu soo galo ma raba horta bari xaaladda kale iman karta waxa weeye bari ka maalin inaan halkaas awlaad ku dhalo awlaadaasi anu maadaama abhood baasaboor Yurubiyan haysto in awlaadaasi ay hami galo inay qurbo tagaan صح oo aniga ama safaarad igu dacweeyaan ama meel kale igu dacweeyaan haddaan xitaa u diido hadda adduunku ilbaxaya safaaradda tii kale waxay odhan karaan aabahay baasaboor baa haystaa baasaboorka Yurubiyanka safaaradda Switzerland bay tii karaan waxay odhan karaan inoo diiday inaan waddan ku baxno aabahay waa argagixiso way ku dhejin karaan Ethiopia adoo jooga lagu xidhi karaa Soomaaliya adoo jooga lagu xidhi karaa safaaradda odhan karta ninkan noo soo qabta baasaboorkaygu haystaa صح marka waxaan ka duulayaa maaha wax aniga maanta ah marka waxaad doonaysaa inaad celiso intaadan tegin waaban hadda already imka hawsha waaban dhameeyaba hawshaas waa isku dhamaatay celistii iyo wixii dhan waa isku dhamaatay 8 bilood iyo ka badan baan jawaabta sugayay waxaas waa dhamaatay wixii celis iyo waxaas dhan hadda waa la soo gabagabeeyay interview kala duwan bay ka qaadeen oo wareysyo badana wadanka soo waxaad uga noqonaysa maadaama wax ku soo baratay nin dhalinyaro aad tahay shaqaysanayso shaqadaada hadda ku cusubtaada hadda waa shaqo bilowday maxaad xitaa at least xitaa waxay ugu waaniyeen inaan dhowr sano 5 sano xitaa shaqaysto waxay ugu yiraahdeen bal 4 sano xitaa waxay ugu waaniyeen oo kale in psychology waxay iga shaqeen caadi ahaan maskixiin waxaan u sanayo qofkan malaa wuxuu u baahan yahay dhakhtar special oo yani si gaar u wareysta dhakhtar waa dhakhtarka ilaahay maanta psychology waa kitaabka ilaahay anigu waxaan ku yiri kalama hadal arrimahan hadda aan adii kala hadlayo dhan iyaga kalama hadal sababta waxa laga yaabaa halka lagu wareysanayo in arrimahan de markaas dib loo celceliyo si kale laga soo saaro laakiin aniga waan soo gaabiyo waxaan ku yiri anigu meesha kuma faraxsani habeenkii xitaa sariirtan ka dhacaa baan ku yiri anoo sariirba ka dhicin waan iska istaraysaa waxaan kaga qanacsanaan ku yiri wadankayga xabad ka dhacayso oo la isku dilayo inaan iska dhex joogo ku noqdo صح oo iyaga wax la qabo waxay yiraahdeen okay laakiin haddana saa ay tahay waraysiyo badan oo kala duwan oo aad u badan bay iga qaadeen oo ah la xiriira qofku sababaha uu noqonayo maadaama laygu hay haddana cadeymo hore maxkamado hore aan soo maray wadankan markaad imika aad dambi gashid ama marka aad doonaysid wax ka hadashid waxa la soo saaraya background-kaagii dambe oo dhan waxa la wixii noloshaada soo maray qofkan muxuu darooga soo cabay qofkan iskuulka muxuu ka soo sameeyey jaamacadda muxuu ka soo sameeyey noloshaadii xitaa waxay soo qaateen maalinkan iskuulka ka idhi hadalkaas kolka imika aan celinaya sharciga way soo qaateen waxay dhaheen maalinkan noocaas hadalkaas ma laga yaabaa inay xitaa wixii ku saameynayo oo maxkamadda hadal xun lagaa yidhi ama maxkamaddii baadan ku faraxsanayn xitaa way baarayaan iyagu systemkaaga inaad diinkaadaysiin kale wixii dhan okay baan ku yidhi sharciga sharci draft document waa mise sharci weyn kii caadiga ah kii weyna صح marka xaaladahaasoo dhan ayaa meeshan ka jira walaal may horta qofku uu go'aansan karaa meeshuu rabo uu go'aansan karaa noloshiisa inuu ku wato waa run maxaan ku dhahdaa haddaadba go'aansatay ood hawshaa gashay oo aad diyaar u tahayna sharciga celiso de horta meeshaad tegaysaa ma aha dee cadaab oo wadankii hooyo oo maalin kasta aan ku hamino intaan u shaqaysano qofna isma yidhaahda markuu imanayo Yurub ama qurbe dee waxaad samaysaa intaad noloshaada halkaasaad ku qaadanaysaa qofna isagoo leh ma uusan soo gelin qof kasta wuxuu soo galay wax ka qabso shaqayso business samayso guriga ka dhiso qofba hambi gooniyo ku soo galay qof maanta ku oranaya halkan nolosha ku dhamaysanaya horta arki maysid kii shalay soo galay iyo kii 50 sano ka hor soo galay iyo kii maanta soo galay waaba isku fikirba oo mid kasta wuxuu jecel yahay inuu wadankiisa ku noqdo isagoo oo walibana wax qabsaday oo ku noolaan kara ma fahantay horta taa waa laga wada siman yahay ninba meel bay la gaadhaa ninba waxay la gaadhaa inuu fikirkiisu isbedelo oo uu halkan ku noolaado ninba isagoo hamigiisii raba adduunkan waa 9 ma noqdee isagoo hamigiisii raba inuu ka miro dhaliyo oo diti alaba u timaada ma fahantay qaar ba nolosha ka kala dadataa walaalo qaar bay stress ku dhacaa qaar ba ku waasha qaar ba yacni xaalad adag uusan wadankii geli lahayn ku gala meeshan ma fahantay marka anigu waxaan ku leeyahay bisla walaalo go'aankaaga horta adigu gooni ku yahay qofkuna madaragtay markuu go'aamo xunxun gaadho amba aad ka dareento waxyaalo xunxun inuu ku kacayo ayaa de qofka loo nasteexeeyaa oo waxyaalaha qaar la dhahaa bal isku noqo laakiin anigu go'aankaaga waxaan u arkaa go'aan aad in badanna kasoo shaqaysay saxna ah baan u arkaa uma arko go'aan qaldan ma fahantay fikirna igamaa weydiinino haddaan hadda ku dhahdo saasaan ku odhan lahaa samee wax macnoo samaynaysaa ma jirto
ma fahantay